أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه السلام يا ميل باكم نوش محرجين عافمت قبتين وفي عنتين إن شاء الله ما أنت هذه اللي وحنا قاعدين ولا له indefinite and definite articles indefinite and definite article okay مرة قاركود just article كريه دالها so article محاته article و an and erigan the oo sar marka qaarkood lagu dhawaaqo da marka qaarkood lagu dhawaaqana de markaas walaalahay marka a waxa lagu dhahaa use before singular consonant noun a u isticmaal ka hor macnaha keli oo xarafka oo shibanaha ah dhawaaqooda marka a u isticmaal xarfaha keliga ah oo dhawaaq uu shibana yahay u isticmaal baariga markaas okay like singular countable noun keli magacyada la xisaabin karo markaste so muxuu yahay magacyada la xisaab like a book waa maxay waa hal book hadaa rabto jamcu noqon kara muxuu noqonayaa books eeda baa ka baxaysa door this is a door waa irid waa hal irid so markaan irida ka dhigay maxay noqonayaan doors asbaa raacaysa pen qalin biiraha marka qalin biiraha jamc muxuu noqonayaa pens so this is all waa wax oo la countable noun waa magac la xisaabin karo sababta nounku wuxuu leeyahay magac aan la xisaabin karin iyo magac la xisaabin karo marka magac la xisaabin karo is called countable means xisaabin ayaa laga wada xisaabin magaceed waa magac la xisaabin karo so now a book waa xisaabin kartaa door sidoo kale pen car gaariga house guriga boy girl man university mujeda this is university waxa waaye all of this waa maxay waa wax aad xisaabin kartid markasta walaalahay I suppose all of this waxa waaye waxay leeyihin dhawaaqa oo shibanaha even erigan university haddaa fiirsid waxa waaye this you dan maxay u dhawaaqaysaa ya university ya so dhawaaqa maxay leedahay dhawaaqa ya ayay leedahay so meeshan is maaragtaa an ma gelinayso waxaad ku dhaafaysaa a markaste so university waa maxay wuxuu noqon karaa university with s raacaya marka qaarkood insha Allah jamac yahay marka erayadan oo dhan waxa waaye erayo jamac laga dhigi karo that means waad xisaabin kartaa sababta erayan la xisaabin karin asbaqaat walaalahay okay an oo ah an is used before singular countable vowel sound so marka ereyga an waxaan u isticmaalnaa ereyada singularka oo la xisaabin karo hortooda kuwaasoo ah codka oo shaqalka leh ereyada shaqalka ah oo keliya ah ayaa la xisaabin karo ayaa horteeda dhignaa an walaala insha Allah ya marka waa kana singular countable names magacyada la xisaabin karo marka maxaa ka mid ah inta example an egg sababta ukunta haddaa soo qaadid waxaad dhigi kartaa kow hal ukun laba ukun saddex ukun mogtahay so maadaama ay ka bilaabato shaqal ay cod shaqal leedahay waa an egg ma dhehis egg ma dhehis is an egg daadba ingiriishka waxaa lagu wacaa an appleka saasoo kale waa shaqal dhawaaq shaqal baad maqlaysaa an apple mujid halkan mujida an hour sababta h waa silent lama akhriyo marka muxuu noqonayaa oodu ka bilaabay an hour markasta walaale here an honor markasta kani waa ukun kanna waa apple tufaax baan dhan af soomaali an hour waa saacad halkan an honor waa maxay kind of sharaf weeyaan oo sharaf ama qiimeyn waa qiimeyn honor markasta walaalahay halkan an umbrella waa ogtiin waa dalada insha Allah walaalahay an ice cream shop waa dukaanka lagu iibiyo jalaatada an ice cream shop dukaanka jalaatada lagu iibiyo an interesting job shaqo oo xiise leh shaqo xiise leh walaalahay an interesting job shaqo xiise leh so kuwaan markaad aragto dhammaantood haddaad dhagaysto waxaad arkaysaa in dhawaaqoodu ay yahay shaqal inuu yahay dhammaantood insha Allah walaalahay shaqal dhawaaq baad maqlaysaa then maxaad isticmaalaysaa an marka uu dhawaaq shibanayaana maxaan kusoo dhahay inaad isticmaashid walaalahay marka halkan waxaa ku do not use in a
an an in non-countable nouns marka isticmaalin xarafka a ama an magacyada oo non-countable noun or mararka qaar waxaad dhihi kartaa uncountable noun that means waxaan la xisaabin karin waxaan faraha marka 1 2 3 4 ma xisaabin kartid ayaa laga wadaa and do not add s-na ha raacin markii s maxaan raacinaa xarfaha waxaan raacinaa markaan jamac ka dhigan walaalahay ma kaste so ereyada countable s ha raacin baa lagu yiri so halkan example haddaan soo qaad walaalahay maxaad aragtaa sugar water rice milk juice flour coffee love anger advice information all of them maxaa aragtaa kuwaan oo dhan ma aragtaa maxay yihiin waxay yihiin waa wax la xisaabin karin waaye haddaa sugarismanis waterismanis ma ka dhigays ma la ogolo walaalahay why sababta markaan anaguba sokortaan xisaabinayno maxaan ku xisaabinaa intaan dhulka ku daadin maan hal sokor laba sokor ma dhahana maxaan ku xisaabinaa ama kiilo ha noqdo ama nus kiilo ha noqdo ama rubac ha noqdo ama jawaan ha noqdo ama bakeeri ha noqdo ama dhala ha noqdo ama geedaha ayna lagu cabiro all of that saas ahaana loo cabiraa ma kaste ma lagu cabiro 1 2 3 lama dhaho biyaha saas oo kale dhala ama bakeeri waxbaad ku cabiraysaa rice bariiska saas oo kale dhulka inta lagu daadiyo hal looma gurbiyo 1 2 3 bariis ma la dhahay walaal ama jawaan baad ku cabiraysaa ama waa kiilaynaysaa walaale caanaha saas oo kale milk maxaan ku cabiraynaa bakeeri dhalo waxyaalahaasaan ku cabiraynaa shaan juicekan waa saas oo kale flour waa burkana maxaa kale saas oo kale burka ma aragta burka wax oo lagu cabiri ka waxbaa lagu cabiraa mahane lama xisaabiyo sida ukunta oo kale iyo maxaa yiraahdaa waxyaalaha hadda kasoo hadlayno oo kale buug oo kale iyo qalinka oo kale 1 2 3 qalin 4 qalin aan rabaa ma dhayso waxaan rabaa kiilo sokor inaan iibsadaan rabaa ama kiilo buraan rabaa leed ama waxaa leed dhalo juice aan rabaa saasaa loo xisaabinaya those call non countable now that means waa magac aan la xisaabin karin waa inuu wax ka horeeya markaa rabti inaad sheegto laba dhalo oo waxaa dhihi karta saliid saas oo kale ma ku xisaabin karto waa laba dhaloo saliid isii baa leeda waxaa leeda laba dhaloo caano isii baa leeda laba dhaloo juice isii baa leeda markasta walaalahay waa saas oo kale coffee saas oo kale waxbaa lagu cabirayaa love jaceelka saas laba jecel ma dhaysa love just to love waa markasta jecel ma dhaysa laba love aan kuu hayaa laba jecel baan kuu hayaa ma dhays waa khalad weeyaan angerna saas oo kale laba anger baan maanta hayaa ma leeda ma dhays laba anger baan ma jeed advice saas oo kale ma fahanti walaalahay information saas oo kale ma dhehaysid maxaa la waxa weeyaan wax lagu xisaabin karo an ma aha walaalahay insha Allah ogaada marka fiir waxaa kaloo jirta waxaa lagu yiri use an to talk to something or someone for the first time isticmaal an markaad qof ka hadlaysid ama qofka aad la hadlaysid ama waxa aad ka hadlaysid marka ugu horeeyo aad qofka wax u sheegaysid isticmaal sababtoo ah ereyga the waxaan isticmaalnaa wax lasla garanayo ayaan ku isticmaalnaa daamin markaan kuu sheegayo waxa lagu isticmaalo waxa idila garanaysid ayaa lagu tilmaamaa markasta walaalahay marka ereyga definite waa maxay known wax la garanayo indefinite waa maxay unknown so marka an waa maxay waa indefinite article an waa unknown indefinite article but the what known marka walaalahay maxaan ka wadaa taasi bal ila arka insha Allah bal ila arka example-dan insha Allah I planted a tree in my backyard 5 years ago now the tree has fruits marka maxaan ku dhahay I planted a tree in my backyard 5 years ago waxaan abuuray geed a tree waa maxay hal geed baan abuuray in my backyard waa meelaha guryaha gadaashooda wax lagu abuurto 5 years ago 5 sano ka hor baan ku abuuray now haddadan la joogo the tree geedkii has fruit that means geedkii aan 5 sano ka hor abuuray haddadan maxana fruto ayuu dhalay marka walaalahay fiiriya I planted a tree geed baan abuuray a tree baan ku dhahay soma so waxa way geedka waan kuu soo sheegay fiiriya I planted a tree geed baan abuuray baan ku dhahay maxaa idhaahdaa backyardigan ku abuuray 5 sano ka hor waxaan kaala soo hadlay geedka soo maha waxaan isticmaalay first time aan kuu sheegay
waxaan isticmaalaa e now maadaama aad og tahay geedka hadda maxaan isticmaalayaa now the tree now geedkii mujeeda has fruit geedkan kuu sheega geedka aan 5 sano abuuray oo aan kaala soo hadlay maadaama aan kaala soo hadlay now geedku waad ilogtahay so maxaan isticmaalayaa that's waa marka da lagu leeyahay waa waxaad ila garan saa ayaa labada sababtoo wixii waan ka soo hadlay markaste I planted a tree in my backyard 5 years ago soma already waan kuu sheegay inaan geed abuuray 5 sano ka hor soma haddana maxaan ku leeyahay geedkii waa inaan ku dhahay geed wax cusub kaaga midhiga waa inaan ku dhaho geedkii mujeeda so the tree has fruit means hadda geedkii wuxuu yeeshay fruit yeeshay qudaar macnaa fruuto badan ayuu yeeshay markaste marka geedkii miruu dhalaa laga wadaa marka walaalahay marka THE waa saas weeyaan waa wax la isla garanaya markii lagu leeyahay ma aragtaa waa saa walaalahay insha Allah saa ogaada sababtoo waan kuu soo sheegay tree waan kaala soo hadlay now waa inaan isticmaala the tree geedkii waa walaalahay ogaada halkan ila arka I bought an egg yesterday shalay maxaan soo gatay an egg hal ukun baan shalay soo gatay mujeeda and markaan soo gatay kadib maxaan subi placed the egg in the fridge so ukuntii maxaan ku suubiyey frigideerka ayaan geliyey mujeeda halkan ugu horeeya waxaan kuu sheegay inaan ukun soo gatay this waa markii ugu horeeya aan kuu sheegay erigan aan ku leeyahay I bought an egg yesterday shalay ukun baan soo iibsaday baan ku dhahay ma garatay walaalahe so marka ukuntii aan already waa kuu soo sheegay haddana maxaan ku leeyahay unplaced macnaa waxaan ku meelay the egg ukuntii in the fridge so waxaan ku leeyahay ukun baan shalay soo gatay haddana ukuntii maadaama ukuntii aad og tahay oo aan ka soo hadlay waa inaan dhaho ukuntii the egg ukuntii mujeeda maxaan geliyey in the fridge frigideerkaan geliyey haddana maxaan ku leeyahay today maanta my son wiilkayga open the fridge frigideerka ayuu furay and broke the egg frigideerka ayuu furay ukuntii wuu jibiyey marka today goormay dhacdo waxa maantay dhacdo waqtiga hadda la hadlayo miya maya waxa actionkan waa action soo dhamaaday maantuu dhacay ba wuu soo dhamaaday markasta waa action soo dhamaaday laakiin maanta ayuu dhacay markasta walaalahay marka halka waxaan rabaa halka inaan kaa fahamsiiyo waxa weeyaan markii ugu horreysay I bought an egg waxaan ku dhahay ukun baan soo gaday shalay daamis hal xab ukun baan shalay soo iibsaday ukuntii maxaan ku suubiyey ukuntii mujeedaan ku leh the egg ukuntii maxaan ku suubiyey frigideerka ayaan geliyey so markaa maxaa dhacay wiilkayga muxuu suubiyey frigideerka yuu fur ukuntiina wuu jibiyey markas walaale marka halkan waxaan arkaysaa markii ugu horreysay waxaan ku dhahay I bought an egg yesterday shalay ukun baan soo gatay maxaan isticmaalay an egg waxaan isticmaalay an why waa wax singular oo markii ugu horreeyay aan kuu sheegay now maadaama aan ukuntii kaala soo hadlay waa inaan isticmaalaa THE waa inaan isticmaalaa waxaad ila garanaysa maadaama ukuntii ila garanaysa waxaan isticmaalayaa THE baan isticmaalayaa marka halkan I bought an egg walaalahay markaste I bought an egg yesterday marka halkan maxaan rabaa an eggan waa maxay waa markii ugu horreysay aan kaala hadlayay ukun baan soo iibsaday shalay waa markii ugu horreeyay afkayga maqashay maxaan isticmaalay an baan isticmaalay had kadibna maadaama aan ka soo hadlay hadda maxaan ku leeyahay and placed the egg ukuntii baan ku leeyahay ukuntii markaan ku dhaho damis waa kuna ila garanaysa maadaama aan ka soo hadlay ukunta wax cusub ahaan kaalama hadlo waa inaan ku dhaho the egg ukuntii maxaan ku suubi ukuntii frigideerkaan geliyey ukuntii maxaan ku suubi and placed the egg in the fridge ukuntii frigideerka ayaan geliyey and today maanta my son wiilkayga open the fridge frigideerka ayuu fur and broke the egg ukuntii buu jibiyey so halkan walaale waxaad ka dareemaysaa marka ugu horeysa qofka markaa kala hadlaysa waxa singular yihiin isticmaal either a or on marka wixii aad ka soo hashay hadaad ka hadlaysid oo warkii weli wado isticmaal THE markasta walaale waa saa halkan waxaan kugu soo celinaya ku fahamsiinay waa saa ereyadaanayti ereyga THE marna loo isticmaala the marna the walaalahay waa isku mid marka qaarkood dadka qaarkood way isku daba qabtaan oo ma kala bixiyaan marka walaal laak sharci ahaan sidana loo kala bixiyaa haddii aad aragtad wada akhrinayna
don't worry walaale insha allah haddaad sometime carabka isku soo qabto don't worry carabka kaligaa maaha anaga naftigan carabkeena soo qabtaa marka ma fahamta walaale oo marka qaarkood da anoo dhahayaan arkaa ama kaste marka walaale insha allah marka saa u ogow this article indefinite and definite article maanta insha allah I hope inaa fahanta walaale insha allah waxaan rajeynayaa dhammaantiin insha allah khayr caafimaad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu